سبحانك اللهم يا عليم يا حكيم علمنا من علمك وأعطنا من حكمتك وآتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. casharkana maanta wuxuu ka bilaabanhayaa suurat alfaatixa bilowgeeda. suurat alfaatixa makiya weeyaan, aayadaheeduna 7 aayadood weeyaan, erayadeeduna 25 erey weeyaan. haddaba suuraddan waxyaalo waaweyn ee caqiidada islaamka saldhig u ah ayay ka hadlaysaa. waadna arki doontaa kolkaanu macnayno haddii eebba yidhaahdo. bismi illaahi araxmaan araxiim. alxamdu mahad lilaahi ilaahay bay usugnaatay, rabbilcaalamiina caalamiinta rabbigooda ah. mahad oo idil ilaahay ayaa iska leh, allaha oo ah caalamiinta oo idil kii abuuray, kii rabbi u ah maamulahaya. ilaahay subxaanahu watacaala waa ismahadinayaa, waana na barayaa in aanu sidaas oo asagu isu mahadiyey ku mahadino. alxamdu lilah, mahad allah iska leh, rabbilcaalamiina caalamiinta rabbigooda ah. ku naxariista, naxariista teeda ballaaran ku naxariista, naxariista teeda caamka ah ee adduunyada dhexdeeda ah, kaafir iyo mu'minba iyo wax nool oo dhan camimaysa, allaha ku naxariista. arraxiimi, naxariista, naxariista gaarka ah ku naxariista, naxariista teeda yaryar ku naxariista, naxariista khaaska ah ee ku gaarka ah dadka mu'miniinta ah maalinta qiyaamada ku naxariista. allahaas ayaa mahad iska leh. arraxmaan araxiim, ilaahayga naxariista adduun iyo aakhiraba naxariista iska leh. naxariista adduun iyo midda aakhirada iska leh oo ku naxariista, midda gaar iyo midda guud ku naxariista, midda waaweyn iyo midda yaryar intaba ku naxariista. oo waxa weeyaan arraxmaanida iyo arraxiimida. arraxmaanida ayaa guri weyn ee ballaaran, sida xurufteeda kolkaa fiiriso ay uga xuruf badan tahay ayay macnahana uga ballaaran tahay. oo markaa arraxmaanid waxay keenaysaa naxariis guud oo dadka oo dhan iyo waxa nool oo dhan gaaraysa. naxariistaasuna waxa weeyaan naxariista ilaahay adduunyada taalla. naxariista adduunyada waxay gaaraysaa waxa adduunyada ku nool oo dhan way gaaraysaa. low naxariistiisa ay ahayna wax noolaan lahaa ma ay jirin. arraxiimina waxaa lagu fasiraa naxariista gaar ahaaneed ee ilaahay uu ku gooni yeelayo naxariistiisa aakharo dadka mu'miniinta ah ee ehlu jannaha noqon haya. maaliki yawmi ddiin, abaalmarinta maalinteeda maaligeeda ah, ama maliki yawmi ddiin, abaalmarinta maalinteeda maligeeda ee boqorkeeda ah. ilaahay subxaanahu watacaala maalin walba asagaa iska leh, adduun iyo aakhiraba asagaa iska leh. adduun iyo aakhiraba asagaa melig ee boqor ah. marka maalintaa waxaa loo khasisahayaa inta kaleeto ee maalinta aan ahayn ee adduunyada ada sheegad baa jira, caariyaa jirta oo waxyaalo caari ahaan loo sheeganhayo lahaasho ah ayaa jirta, ama boqortooyo la sheeganhayo ayaa jirta. ama maalinta aakharo wax sheeganhaya, wax milkin ama boqortooyo sheeganhaya ma ay jireen. asagaa sheegadkii oo dhan asagaa loo sallimahaya ee looga tanaasulahaya, xaqiiqadeedii arrinta u noqonayaan. wixii caariye ahay oo dhan way zuulayaan. dhabtii keliyaa soo haraysa ee ah ilaahay inuu lahaashada leeyahay, keligana boqor yahay. iyaaka adigaan allow nacbudu ku caabudaynaa, keliga ayaan cibaadada kugu gooni yeelaynaa. wa iyaaka adigaan nastaciinu kaa kaalma dalbaynaa,
adigaan ilaahayow kaalmana ku weydiisanaynaa ihdinaa na hanuuni asiraada jidka nagu hanuuni almustaqiima ee toosan ee ah diinta islaamka siraada aladiina kuwii jidkoodii ah ancamta aad nicmaysay calayhim korkooda aad u nicmaysay ilaahu nagu hanuuni jidka toosan waa jidka islaamka kuwii jidkoodii ah aad u nicmaysay nebiyaashii ah rusushii ilaahay uu soo diriya nebiyaashii ah shuhadadii ah sulaxadii ah dadkii wanaagsanaa iyo dadkii shuhadada ahaa iyo nebiyaalkii ambiyadii jidkoodii ah aad u nicmaysay dushooda aad ugu nicmaysay ridahaaga iyo muxuuha risaaladaada iyo naxariistaada aad ugu nicmaysay iyo islaamnimada gayri lmaqduubi calayhim kuwii loo carooday keyrkooda ah kuwaas aad u nicmaysay kuwii loo carooday ma aha kuwa oo ah yahuudii waladaaliina kuwii lumeen aan ahayn ee ah nasaaradii ayaguna dariiqii ilaahay ka lumeen iyo wixii jidkooda qaado oo idil haddaba suuradan 7 aayadood ah kolkaad fiiriso waxyaalo waaweyn oo saldhig caqiidada kamid ah ayaa laga faa'iideysanaya midda u horeysa waxaad arkaysaa suuradda in lagu bilowday bisinka ilaahay sida suuradaha qur-aanka oo dhan loogu bilaabanhayo suuratul-bara mooye inta kaleeto oo suuradaha qur-aanka waa lagu bilaabanhaya ayadana hadii eeba yiraahdo markaan ayada ka hadlaynaa xigmadii bisinka looga tegay suuratul-bara ayaanu ka hadli doonaa marka waxay tusinaysaa taas magaca ilaahay wax kasta oo muhiim ah inay habboon tahay in lagu bilowdo sida nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam amar kasta ee muhiim ah oo bisinka ilaahay aan lagu bilaabin waa mid oo abtar ah ana ku erib xun weeyaan oo dib go'an oo barakadiisu ay naaqis tahay taa waa mabda weyn ee laga faa'iideysanayo bilaabashada bisinka ilaahay loogu hordhigay ee lagu bilowday tan labaad waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala in uu yahay mahad oo dhan asagu iska leeyahay isna mahadinhayo dadkana uu barahayo koonkaan oo dhanna inuu asagu rabbi u yahay ogaashada taa qofku ogaado waxa weeyaan caqiidadeeda saldhigeedii uu helayo markuu ogaado koonkaan oo dhan ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu rabbi u yahay inuu maamulahayo marka inay tahay arrinta in asaga loo celiyo lagana qaato waxa weeyaan saldhigga caqiidada islaamka weeyaan taas waxaa halkaas ka garanaysaa ilaahay inuu yahay kii naxariistay naxariistiisa ay ballaaran tahay caradiisana ay ka horeyso kana badan tahay inuu asagu yahay maalinta qiyaamada kii ee iska leh oo marka halka aad ka garanayso maalintii qiyaamo jiridii aad ka garanayso maalin dambe inay jirto oo dadkii oo dhan la abaalmarinhayo qof walba wuxuu soo kasbaday khayr ama shar lagu abaalmarinhayo taasina waxa weeyaan saldhigyada caqiidada inuu qofka uu rumeeyo maalinta aakhira jirideeda iyo qof walba in lagu abaalmarin doono waxa uu kasbaday tan kale waxa weeyaan ilaahay cibaadada in lagu gooni yeelo iyo kaalma balabkaba labadaba ilaahay lagu gooni yeelo tan kale in muxuu ahaa ilaahay halkaa naga tusinayo sidaan u baryi lahayn oo markaas addoonku ay tahay dariiqiisu ama waxa la gudboon asagoo dadaalayo awoodiisa oo dhanbixinhaya haddana inuu ilaahay ku tiirsanaado had iyo jeer ilaahay uu baryahayo ihdina siraada almustaqiim jidka toosan ilaahu nagu hanuuni jidka oo ah kuwii hore dariiqoodii hadba halkaas laba dariiq inay jiraan kuwa ilaahay u nicmeeyey iyo kuwa ilaahay u carooday iyo kuwa baadiyoobay inay dariiqyada ay jiraan marka jidka had iyo jeer dadka mu'miniinta ay weydiisanayaan waxa weeyaan jidkii kuwa loo nicmeeyey ee ambiyadii ilaahay iyo shuhadadii iyo dadkii wanaagsanaa jidkoodii ah waxaa la wariyey nabiga calayhi salaatu wasalaam in uu yiri ilaahay baa yiri macnaa xadiis alqudsi oo ilaahay uu yiri nabiguna uu ka xikaayoonayo ka warramayo ilaahay baa wuxuu yiri salaada waan qaybiyey aniga addoonkayga yaan ku dhex qaybiyey qayb anigaa iska leh qaybna addoonkaygaa iska leh addoonkaygu waxa uu su-aasho waxa uu weydiisto ayuu leeyahay addoonkaygu markuu yidhaahdo alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin waxaa markaa ilaahay yidhaahdaa addoonkaygu way ammaanay way mahdiyey addoonkaygu markuu yidhaahdo arraxmaan arraxiim oo sidaas addoonka ku faatixada akrinhayo arraxmaan arraxiim uu yidhaahdo ilaahayna markaa wuxuu yidhaahdaa addoonkaygu way ammaanay kolka hore alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin markuu yidhaahdo wuxuu ilaahay odhanhaya addoonkaygu way mahdiyey
الرحمن الرحيم مركو يرادن إلهي وحوران هي أدونكيغو وأماني مالك يوم الدين مركو يرادن وحوران هي أدونكيغو وإشرفي إياك نعبد وإياك نستعين مركو أدونكو يرادن إلهي وحوران هي تاس أني أدونكيغو دحيسة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مركو يرادن إلهي وحوران هي تا أدونكيغو سغناتي أدونكيغنا وحا السؤاشو أيو ليه حتى بطاعت iyo waxyaalka suuraddan ay tusaaleenayso waxaad ka garanaysaa suuraddaanu macnaha weyn oo leedahay iyo had iyo jeer akhriskeedu u badan yahay salaada loogu soo celcelinayo dadka muslimiinta ah qof kasta oo mu'min ah iyadoo ku tacalluqsan yahay oo markaas qofka mu'minka oo salaada tukanaya ugu yaraan oo akhrinhayo hameenkii maalintiiba 7 jeer oo akhrinhayo marka uu yartahay markii kale to salaado sunna uu si tukanayana ayna xisaab lahayn oo markaas had iyo jeer faatixada qofka mu'minka uu la xiriiro akhrinhayo salaada ayada lagu tukanina ma ba ansaxayso sida nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam salaad ma laha qofkii aan faatixada akhrin sidaas uu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam marka waxa weeyaan faatixada waa saldhigga ayada quraanka lagu furfurtay ee bilaabashadiisa ay tahay haddana aqeedada saldhiggeedii weeyaan waxyaalka waaweyn oo dhan ayay ka waramaysaa saaraadeed baa nabiga lagu yiri calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu ku siiyey 7 la soo celiyo iyo quraanka weyn 7 la soo celiyo waxa lagu fasiray faatixada 7 aayadood ayaa lagu fasiray soo celinteeda oo akhriska had iyo jeer lagu soo celinayo xataa soo degideeda waxa la wariyay 2 jeer in ay nabiga ku soo degtay ayadoo mar ku soo degtay ayaa hadana mar labaad sidii ayadoo cusub hadana lagu soo dejiyay malaa'ig badan ay suguntinayso faaraadeed dadka muuminiinta waxa wanaagsan had iyo jeer faatixada inay la xiriiraan kolka akhrinayaan ayada oo macaanideeda tadabburayo fiirinaya ilaahay inuu mahad oo dhan iska leeyahay koonka rabbiga inuu yahay oo maamulayo naxariista inuu yahay naxariista waaweyn ee teeda yareeba ku naxariista aakhira iyo qalbiga ku hayo milacsanaya cibaadada iyo waxa ay la imaanayaan daacada ilaahay ayagoo ku gooniyeelayo si daacada u la imaanaya ayagoo markaas ilaahay baryada u jeedinaya wanaagsan oo marka ilaahay nagu hanuuninayo ihdina siratal mustaqim jidka toosan waxa lagu fasiray jidka islaamka inuu yahay oo marka ka magan galay ilaahay in uu baadiyeeyo kuwii hore ee baadiyoobay jidadkoodii kuwaas ka magan galay ilaahay jidka toosan oo weydiisanayaan waxa weeyaan kuwii ilaahay u nicmeeyay jidkoodii oo aan ahayn kuwii ilaahay u carooday yahuuda ayaa lagu fasiray kuwa ilaahay u carooday wala daalina kuwii baadiyoobayna aan ahayn عشركنا مانت انت سكوب هاي والسلام عليكم ورحمة الله. عشركنا مانت تقال باللابن وهي سورة البقرة إلا وغيره. سورة البقرة مدنية وحي كسو دكتين مدينة نبي إيتي سوها جري وحي نكمل طاي سورين كي سور دقين نبي نكو سوها جري كو إيوري aayadaha badankooduna waxay soo degeen si isdarajoog ah hase yeeshee waxaa laga helayaa aayado ka mid ah qur-aanka soo degidiisa kuwii ugu dambeeyey aayadahaas oo ah aayadaha ribada ka hadlaya waxay kamid yihiin aayadaha ribada ka hadlahaya qur-aanka soo degidiisa kuwii ugu dambeeyey suuradan sida ay u hadlayso waxa ay ka kooban tahay 2 qodob oo waaweyn ayuu hadalkeedu u badan yahay 2 qodob oo kala ah yahuuda iyo hortaagga ay sameeyeen inta islaamka hor istaagaysay iyo cadaawinimada ay la cadaaweysay taa oo aan arki doono aayad badan ee ka hadlaya nicmada ilaahay uu nicmeeyay iyo dabeecadooda say ahaan jirtay weligood ay intaan nicmada ilaahay ku sifrin jireen rusushan iyo waxyaalka iyo dhibaatooyinka ay intaa ka soo martay iyo sida muxuu xaalkoodu ahaa xaalkaas ayaana loogu soo bandhigi doonaa suuradan isla waqtigaas yahuuda iyo kuwii afkood ku shaqaystooyinka ahaa ee islaamnimada sheeganaya munaafiqiinta ahaa xiriirkii ka dhexeeyey ee ay u wada heshiiyeen nabiga asxaabtiisa sidii loo lugoyn lahaa iyo kuwii kaleeto ee gaalada ahaa ee mushrikiinta ahaa waxay kaleeto ka hadlaysaa dadka mu'miniinta ah ee
kobcintooda aayaadka ilaaha lagu kobcinayo waktigii ugu horeysay awaamirta la farahayo mawaahida laga reebahayo iyo sida muxuu ahaa tartiib tartiib hadda sidii uu dana ilaahay subxaanahu watacaala aayaadka qur-aanka loogu baabi'inayo. darsigan iyo qaybtooda horena waxaan arki doonaa 3 qaybood oo dadka qaybihiisa ah inay noo soo bandhigi doonto. qayb wanaagsan oo mu'miniin iyo qayb gaalo cad ah muxuu gaalo cad waxaan wadaa gaalnimadooda cadaystay oon qarsanaynin iyo qayb kaleeto oo munaafiqiin ah oo ayagu korkaa isku muujinhaya iimaan iyo inay yihiin dad muslimiin hoosna gaalada kala xiriira. 3 qaybood ayaa naloo soo bandhigi doonaa suuradaha intooda hore. isla waqtigaa waxaad arkaysaa bandhiga sidaas ah in ay tahay aadamigu had iyo jeer waqti ay joogaan iyo meel ay joogaanba qaybaha 3 inay ka bixi karaynin. qayb walba waxaa naloo soo bandhigi doonaa astaamaheeda iyo tilmaamaheeda iyo sida xaalkeeda ku dambayn doona. waxayna suuradaana ku bilaabanaysaa qofka ugu horeysa qur-aanka dadka mu'miniinta markaa haddana tilmaamahooda nolosheedaya kaafiriinta iyo kuwa munaafiqiinta ah oo aayaadku aada ugu dheeran doonaan. markaas dabadeed baa yahuudi iyo axwaalkeeda iyo xiriirkeeda iyo dhibaatooyinkeeda laga warrami doona ilaa muddo ayaa la wadi doona. markaas dabadeedna waxaa laga hadli doonaa dadka mu'miniinta ah iyo axwaalkooda iyo sida aayaadkii awaamirtii lagu kobcinayo. bismillaahi raxmaani raxiim. alif laam miim. alif iyo laam iyo miim waxay kamid yihiin xuruufta suuradaha qaarkooda lagu bilowdo oo macaanidoodana aan la oran karin boqolkiiba boqol waa sidaas aan la dhihi karin. sidaas daraaddeed ayay culamadu la jeedadooda isku khilaafaan. culamadii horena ogaalkeeda ilaahay lagu bandhigi jireen way ka aamusi jireen. sababta keentay taasna waxay tahay hadal sidaas ah oo alif iyo laam iyo miim intaa ka kooban ama suuradaha kaleba sida muxuu ahaa miim qaaf yaasiin kaafaya insaad xaamiin suuradaha sidaas oo kaleeta laabashadaas may aqinin carabta hadal sidaas u kooban ama sidaas u dhisan oo kuma ayna hadli jirin. nabiguna calayhi salaatu wasalaam ma u fasirin lagama soo sheegin inuu fasiray oo yidhi sidaa weeye ma haddaana carabta ku hadli jirin. nabigana aan laga soo sheegin fasiraad ilaahayna sidaa u soo dejiyey lama oran karo boqolkiiba boqol macnuhu waa sidaa. taasaa keentay markaa culamada inay isku khilaafaan. culamada horena waxay ka aamusi jireen ogaalka arrimahaas ogaalkooda waxay ilaahayna isaga bandhigi jireen xorin jireen ilaahayda oo cilmi leh saasay ku gaarsan jireen. waxaa jirta culimooyinka qaarkood ama fasiraada badan oo la fasiro kan la yidhaahdo waa ugu dooran yahay waxa weeyaan baraarujis dadka lagu baraarujinayo qur-aanka mucjizadiisa lagu baraarujinayo oo ujeedadoodu ay tahay qur-aankani wuxuu ka kooban yahay oo iska saaray hadalka aad xurufta aad ka saartaan hadalkiina markaad hadlaysaan xurufta isaga geysaan hadalkiina carabada hadalka carabada dadka ku hadla isaga geeyaan oo ay ka mid yihiin alif iyo laam iyo miim xurufta hijaayiga ahayd ee carabiga la iska saaro marka laga hadlahayo qur-aanka xuruftaasaa isaga geeyay. isla waqtigaasna waa kaasoo lama imaan karaysa jinni inta hadday isu taraan lama iman karaya. waa loogu taxadiyey oo loogu banbaxay inuu qur-aankaasoo kale la yimaadeen 10 suuradood oo suuradihiisoo kale inay yimaadeen aayad ama aayaad asagoo kaleeto inay yimaadeen war asagoo kaleeto inay yimaadeen way ka cajiseen ilaa yawma qiyaamana cajisku sidaaba u saaraan khalaaqda oo asagoo kale lama iman karaya. marka sidaas ayay ujeedadu tahay ayaa culimada qaarkood yidhahdaan haddii la yidhahdo hadal fasirana macnahaas ayaa ugu dhow oo laga xijaxa. dalika taa الكتاب او كتابك لا ريب لا شك فيه في سماحان انه من عند الله الى اتسم هذا الى حديث الرسول. ذلك اشارة كتابك القرآن كذا كتبت له ان كل عيسى ذلك كاس تدرس للدرجة ديس اي كفايسة بكتاب القرآن كاء لا ريب فيه شك وحدي سماحان الهي اتسم الرسول بجي شك مجو هذا الحاصل لنا يتبدأ سوى شك سماح سكون دين السنة وحاسيها نيني شكي وحي كسر لها أيوة المستوى سعية دنيا السؤال لأن الدنيا سعية الدنيا سعية أن يكورن كيسا وقت عقل لها تدبرها في الفيلية ويحشكي كسرك وقت طلبت قصة شكيها وشكي بسكة سوقات منها هذا محميا كتابا للمتقى من كل الله كعسده حميد بإيه حق
تصالين هي مكا هنين بإيه كو إلهي كعصر كلا مطلقين القرآن كهنين كله ألا كنامة لأفتانها من ليش هناك الذين كوافوا يؤمنون خناية بغير غير كرناية ويقيمون أوده الصلاة صلاة أوده ومما رزقناهم نحن كأرجو ميقار كيف ينفقون بحية كل عيادة المتقين في القرآن كهنين كله وكل خنايان غير كرنايان وحتى مطن أي أكيين بركي إهلان وحتى خناية أدلاء كونك عيدة هلان رفش إلهي الصابر عليه وعبيسه كتبت إلهي وبحران ورغم يوم لم يشير غير إلى كمكان وكمتها البعث لي صابحين تآخر كالنبي النار صراط كيبتك صراط كالمرهل ميزانك وحسابك غيرك ملائكة جرد يدي حاكر إلهي سبحانه وتعالى جرد فيه قدرتي فيه وعلميسة وحياتك عزيزك وكمكان ورغم يومين ورغم يوم إله الوقت يحجر مع الأرمين وآثار كالكباب السعيد إيمان قوة وقوة إيمان هي محكمة الذين يؤمنون خنايان بالغير غير كخنايان وكمان سيدوا كل إلهي حسنهي كمان قوة ويقيمون أوران الصلاة صلاة أوران صلاة من أوران يتكرين وقت غير عوض عليهم أهداف ينفع وحي صلاة وإبعان من كيرك كيرك يشروط وقصوا عوض عليهم صلاة كل أوران منه كأنه تتحتاج الكاملة لكن القرآن كلمانها بأحكامها وكسر النهيان وقوة قلية طيرها طيبتك إليها من ذلك توسر النهيان ومما رزقناهم ينفقون وينفقون قوة بحيوين مما من بعد ما قال كيسة رزقناهم أن تعرسقني نحن أن نفسك أربك من نفسك السنين قال كتوب بحيوين وحيوين صدقات أو بحيوين وانتو رباهم أي كثيرين هلا أنا كاكتبهم وفعلهم سنين ويكبرين هلا وحسين تلعيه وحبهين تذكرني هي صدقات ثلاثة سنين وهو قصر وحلاها من تذكرين سبعان من كثيرين اللي يباهين هلا الناس بحاليين وكسر ناوين وحبهين تاية ذكبهين تاية صدقات بهين تاية والذين يؤمنون غنين اللان بما غنين اللان إنجيل للدجين يليك عدد المجيس الدجين يأسرف الرسل وصفة كي أسرف النواو خلقه إلهي كي أكبر طول يرويين عليه الصلاة والسلام كي يوصل الدجين القرآن كأه كل غنين وهي كل غنين إنجيل للدجين من قبل كعدد غرطة للدجين وبالآخرة آخرين كل غنين وقال غنين يقنين آخرين الله وحيوان أستعمل الكسر من إيه كوات من هي القرآن كرمين كي يلي يوسف بجي كوات من هي نبي النبي سكرني لا حديث أن يوسف بجي أذن هي وعمل صلاة وراحي لكن معه كتبت إلى يوسف بجي أذن كوات من هي وما أنزل من قبلك أنا أختاري إلى يوسف بجي أذن كوات من هي توراة برمين هي سنجين برمين هي جميل برمين هي وحألا وحي كتبه إلى حديثك السودانية أن برمين هي إلا كتبت إلهي وفصش إلهي ومن وعدد وحيوان كتبتها وعجل رئيس كبيرحرين أن نبنى بكراء كمين وسوق حرميسيين مقعس فكي تورات يغني مكي نرئي سبيلين تورات مع البدلين أي تريدو كنحب حين أو سلسلات اسكفرين أي كدسين كان نصارى أيضا نصبه رقوة التورات يمين نساء كل حدين إلا وحي هيد إنجيل وحي هيد كمنت بالتورات وهيد وحي السعر وهيد فيها الترابط بعيد وحلوث بدي حاجة محاريسة أي حاجة مفوعس أكيد وكرا أما حاجة أحكام إلا وحياتك لو محاملة وغضان تورات بيكرع سنين يعني حاجة اعترع عام بوهيد مكاسي كل حدين أيضا من الدون أسبوعين أيضا من البدلين مكاسي الدنيا الدين أما سلسلبي وسكور حيرا كل حدين مكاسي كتين تورات كل حدين يمين مسألتين مين محملنا وحمين لاوين أيضا من عدم وكسر لعين مكاسي القرآن كان سلسلبي وجلاء بسيد الجنجري أن يتبقى هاي بكحل من كل إلهي كحسن وقوة من هي في صلاة سكورة حرام الكتب الإلهية قرآن كوف من هي وحي غرقيس لسيد الجين كوف من هي وأفتانك الإلهي وبالآخرة آخرين هم أيضيوت من كل من هي آخرة جديد كل من هي فإذا يبعث جديد أيضا متعسى أيضا في موسى بلنس أولئك قوة صفات كاشفة أستعمل سنة الكتب مانسا على عيدا حميد الكثير من رب حجر الدولة شفتا كلمات أذكر ورحله وكلا أحتمامها يتغيث منها
إن الصلاة تكونه إن الحيث إله كأرسل وحكم بحنه إن القرآن قائل وحي وكي في سبب كتب إله غنيهم إن يوم آخر يقين فيه إن معناها الشد أعطته الذي إله يقول يحمين ويكب التاريخ هم قاسوا حتى هم بغير هذا وأولئك كلاسة هم أوضع المسلحين كل ميراني لذلك علم أن الإسلام كده إله سبحانه وتعالى أرطانها كل مذهل أي أحكم الميرانين كان ما تنتاسي كأجهي والسلام عليكم ورحمة الله. عشر كان ما تنتاسي بالله منها يا آيات اللحاد سورة البقرة كاملة. إلهي في مصر شهيد سبحانه وتعالى ددك والمناكسن المؤمنين أسطامها أي ددك كلاء يبسوا عنه كوا الملاصر شهيد شن أسطامات الوين شن تاس وكلاها إن أي وحين أركينين غيره مكي دليل وحيستاني وفنين صلاة أغيا سكرية صدقة عيد كتاب القرآن كاه يكتب إلهي كوري كأثنين معنى آخر يقينا فيه شنطة المعموت أيام على غصر شيء قيبتا مؤمنين تاه قيبتا كافرين تاه أيام هدنا هل كان لدو الشيء بلدتنا قيبتا كليتا منافقين تاه أيام لده الهياء أيضو قديران دونا إن الذين كفروا كفرين سواء وحاءك عليهم كقودة أأنذرتهم أدكتيا أم لم تنذرهم ومدقناد لا يؤمنون مرمين أيام إله يقول سبحانه وتعالى كوى قالوا هدو آد أدكتي يهدو آدم أدقين السبن دوية أنا كوى قال لماذا أي علم إلهي وغر نفطي تجد آد أدكتاه يتجد آدم أدقين ده السبن دوية مرمين أيام ما دام أين أدي عرهين قلب قوضي عقل قوضي مفتح قوضي أين أفرين أين الدوني من حقي هدو آد أدكتي يهدو آدم أدقين يسلم دويين لا يؤمنون مرمين هيان مرمين هيان حداد يدكتب مرمين هيان حداد يدكتب لبن برارجين مرمين هيان برارجين هو برارجين لعنتو يسلم دويين ما حداد إسلام نقدين وعقل علمته هي عقل علم لعنته واندي برارجينته وانا لعنته يدكتب لعنته أي يسلم النبطي ختم الله لنا وآدي على قلوبهم قلوبهم وعلى سمعهم مقال كودر marka ilaahay wuxuu ka ooday waxyaalkii hanuunka dariiq u ahaan lahaa qulubtoodii ilaahay waa ooday maqalkoodiina ilaahay waa ooday oo markaas waxay maqal hayaanee xaqa ah ku intifaaci maayaan wacalaa absaarihim aragyadooda korkoodana gasaawa arankooda wax uu daboolaya oo kale weyaan saddexda dariiq ee dadku ay wax ku garan lahaayeenba waxay leeyahay ilaahay waa ka ooday qalbiga maqalka aragga saddexdaas dariiq ee dadku ay wax ku gartaan saddexdiina ilaahay baa ka ooday maadaama ayna ku intifaacaynin ee xaqa ayna ku garanaynin dee wax laga odoo kale weeyaan walahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab bay leeyihiin cadiim kuwa sidaas xaalkooda uu yahay oo ilaahay qalbigii iyo maqalkii iyo araggiiba uu ka ooday oo ku soo baxeen dhib iyo laayooyin ku soo baxeen iyo dhago intaba kuwaas cadaab cadiima ayay leeyihiin intaa ayaa gaalnimadooda muujisanayay ee aan munaafiqiinta ahayn islaamka muujisanaya hoosna gaalada ka aan ahayn intaa ayaa looga haray astaamaha ay ku soconyihiinna waxa weeyaan haddii la baraarujiyo haddii aan la baraarujin inay isugu mid yihiin digid iyo digid la-aanta inay isugu mid tahay labada jeerba ay yihiin kuwa ilaahay uu ooday caqligii iyo qalbigii iyo maqalkii iyo dhagihii iyo indhihiiba uu ka ooday cadaab cadiim ana ay leeyihiin adduunyada ee alfaha aakhiro halkana waxa loo gudagalayaa dadkii islaamka sheeganhaya laakiin in dhabta aysan ka ahayn hoos gaalnimada ku qaranayeen wa min annaasi dadkii waxaa ka mid ah man baa ka mid ah يقول أرنيا آمنا وانهميني بالله الله هميني وباليوم الآخر ينك دنبنا وانهميني وما هم منعه بمؤمنين ومؤمنين ميح إلهي إليه سبحانه وتعالى تبكي حاكمده مد أرنيا هو أرنيا لحن هميني إلهي وانهميني من نبي سانهميني وطربي سانهميني إني سانهميني أودي سيء وانهميني كتبت إلهي إسود جانهميني خصوصي سانهميني
sidaas oranhayo allah rumayni oranhaya ayaa dadkii ka mid ah oranhaya maalinta aakhira ayaan rumaynin inuu lisa soo bixinayo qof walba wuxuu adduunka kusoo kasbaday lagula xisaabtanahayo taana waan rumayni والحال ما هم بمؤمنين قوة مؤمنين أنا أين أحين ووقع عفو أي كلمهم وين إلكيه أوكو اسم كبيرين محمد كسبات وحن باراي وقال إن الله إلهي بخديع هيان للذين كوا عملوا رموين وحي ذكر هيان الله ذكر هيان دينت الله ذكر هيان رسولت الله ذكر هيان كل مؤمنين تأوي دينت إلهي رميسين للموضع رميسين أي ذكر هيان وما يخطئون من الذكر هيان إلا أنفسهم نفسهم رموين وما يشعرون مسك الصحيان لا يحولوه كوى السبع أصحاب كودوه أرانه إلهي رغمين يا مالنت آخر أيضا مؤمنين أحين حال كودة لقر بيسكوية الهيان وعدد عن إيمان الهين تبكي مؤمنين تهانا دم أي كوكا ستو إني لما ولها دان مركز موجسين هيا وحقين خميسين وحين اتقاد سنين موجسين هيا مركز sidaa waxay u yeelahayaan baa ilaahay leeyahay dhagar allay dhagrahayaan dadka muuminiinta ay dhagrahayaan dhagartaas ay leeyihiin adinku waxbaa dhagraysaan ayagaa dhibaatadooda u noqonaysaa